waxaa jira deegaano fara badan oo hore aynan u joogin dowladnimada iyo harka calanka Soomaaliyeedba maanta inay jiraan. waxaa jira deegaano fara badan oo aynan gaarin imkaaniyaadka dowladnimada ay ku dhacday in lagu gaarsiiyo ciidanka xoogga ciidanka qalabka sida anoonan kala reebeynin. haba ugu dhawaato maalmihii ugu dambeeyay waxaa socdo imtixaan oo dhalinyarada iyo ardaydaba mustaqbalkooda iyo ay uga shaqaysanayeen. imtixaankaas waxyaabaha ay ka qabteen ciidanka xoogga iyo ciidamada kaleba waxaa ka mid ah inay sugaan amniga. waxaa ka mid ah inay imtixaanaadka gaarsiiyaan gobolada meel kasta oo maaragtay la gaarsiin karay. waxaan ku faraxsanahay oo aan rabaa maanta inaan idiin sheego in ciidamada cirku ay qabteen hawl muhiim ah oo aanan weli hore u jiri jirin si maaragtay wadajir ah ama si hal mar ah inay u dhacaan imtixaanaadka qaranka. waxaanu leenahay hadda diyaarado ay maaragtay hoggaamiyaan ama wadaan hagaan ciidamo Soomaaliyeed oo ciidanka cirka ah una tababaran. dhaawacyada iyo tasiilaadka ay u baahan yihiinna waxaa u geeya ciidanka Soomaaliyeed. sida aan hore u sheegay Xuseenba, deegaano aanan hore u joogi jirin aan joognay intaan wuu ka balaarnaa meelihii aan joognay, laakiin waxaa jira meelo aan dib uga soo laabanay xeelada dagaala. xeeladahaas dagaal waxyaabihii ayna bareen waxaa ka mid ahaa inaan ku laabano ciidanka, istiraatiijiyadooda dhisno, reform u sameyno, kala saarno kuwa magaca u joogo iyo kuwa active-ka ah aan kala helno. waxaa ka mid ah inaan helno kuwa dhaawacyada ah ama kuwa howlgabka ah ama kuwa aan joogin iyo sidoo kale kuwa shuhadada ah. ma jirin awal system kala saara, laakiin waxaanu sameynaa systemkaas. waxaanu kor joogteynaa ciidanka, waxaa la gaarsiiyaa qof waliba meesha ay joogto iyo waxa ay ku maqan tahay yaanu maanta kala ognahay. waxaan rabaa anoonan ku dheeraanaynin maadaama 5 daqiiqo la siiyey Kamaalo uu taagan yahay meeshii inaan gabagabadeedii soo galo. waxaa hadal iga raacay hadalkii hadaayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo midnimada markuu ka hadlay. aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada aanan ka faa'iideysan xilligii midnimada dhammaystirneed ay jirtay, dowladnimaduna cagaheeda ku taagneed. laakiin maanta waxaa iga nasiib xun caruurta yaryarka ah ee cadownimada iyo bahalnimada lagu korinayo oo deegaanada khawaarijta ay haystaan lagu korinayo. waxaa laga yaabaa aniga in shalay lagu soo koriyey qabiil iyo qabiilkaas uu la dagaashan yahay ama qabiilkaana ka dheernaha ama qabiilkaana naga dheer in la shalay la soo baray. laakiin cadownimo intaas ka fog yaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeedba maanta la baraa. waxaan rabnaa deegaanadaas harka dowladnimada inaan gaarsiino hadduu Ilaahay raali ka noqdo, midnimaduna ay gaartay biidhnillaahi alkariim. sidoo kale hubka oo hadda uu ka hadlay la taliyaha amniga qaranka, cunaqabateynta hubka waxaan leenahay xeeb dheer aan leenahay. waxaan leenahay meelo fara badan ay kasoo geli karaan hubka, laakiin hubka hadda yimaada waxay ku yimaadaan ogaansho dowladnimo. kuwa sharci darro ahna way dhici karaan. caalamka horumaraa la geliyaa, annagoo hadda kabanayno waa dareemi kartaan. sidaas ay tahana waxaanu daba joognaa meel kastay ka soo galaan. sanadkii hadda lasoo dhaafay dhammaadkiisa waxaanu gubnay 2 doomood oo hub ah oo badda ku imaado, waxaana garab naga siiyey saaxiibada caalamka. xogtaasna waxaa helay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala xuduudahan inaan ka warqabi doono, cadowgana la dagaalami doono, guulahana sii horumari doono biidhnillaahi alkariim. Soomaali waxay wax ku wada gaari kartaa wadajir, midnimo iyo qarannimo wax ku wada gaari kartaa. gogashaan aan uga faa'iideysanaya ciidanka qalabka sida saacadan la taagan yahay waxa ku da'ay roob. waxay joogaan meelo kanaacada ka dhalato. waxaa intaas sii dheer cadowga waxay awoodi waayeen inay meel kasta ku baxsadaan ciidanka. waxay sameeyaan hadda 2 buunda ayay jireen, waxay ka jireen shabeellada hoose ka jireen.
buundooyinkaas ay jarayaan danta ay ka leeyihin waxaa weeye in ciidanka aanan soo gaarin. laakiin ciidanka kama nasan, meeshay joogeenna way qabsadeen, wayna u soo wareegeen, dhan kale nooga imaadeen. keliya waddada iyo waqtiga lagu tegaya isbedelaya maahan, laakiin ciidanku ma joogsan karaan. waxay kaloo sameeyaan matoore waxay saaraan webiyada markay matoore saaraan waxay soo saareen biyo kusoo furaan, kanaale kusoo furaan. kanaaladaas ay soo furaan waxay tahay inaan la soo gaarin. how long ay socon kartaa marka? annaga marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan si kasta oo ku gaari karo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku gaaraan. gogashaan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto. amniga wuxuu dan u yahay aniga, adinka iyo carruurta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan. wax waliba oo aan ka wada hadlayno ama aan isku eedeynayno inaan ka reebno amniga, inaan ciidanka dhiirigelino, inaan garab iyo gaashaan u ahaano, guulahoodana inay macno noo yeeshaan, aysan macno noo yeelan maalin meesha ay ka soo baxaan ciidanka. waxaa arkaysaa hal maalin waxaa jirta aan rabaa inaan afka ku dhufto, aadan yabaale ciidanka ka soo baxay maalinta ay tagayeen iyo inta ay joogeen lama sheegin, waxa ay qabteen lama sheegin. maalinta ay ka soo baxeen ilaa maantadan la joogo waxaa laga dhigay in Muqdisho iyo Wardhiigle shabaabka ay joogaan laga dhigay oo aadan yabaale looga soo baxay. taas macnaheedu waxay keenaysaa in shabaabkiina ay niyad u yeesho, annaguna niyad jabiso. hadda waxaa la gaaray amni ahaan oo aan rabaa inaan xuso dekadda Soomaaliya waxaa jiri jirtay xilli markii markabka Jayna oo ka soo baxay kontraar saaran lacagtiisa loo soo shubo shabaabka jiri jirtay. dadkoodii waa aragteen ayadoo muuqaalo ah la maxkamadeynayo, waa la qabtay, horumar la gaaray. waa dhiirigelin u baahan, ciidanku dhiirigelin u baahan yahay, garab istaag u baahan yahay. waxaan rabaa hortiina uga mahadceliyo haweenka Soomaaliyeed oo raashinka qalalan u diyaariya, u geeya dadka dibadaha jiro oo iska soo aruuriya qaaraan. qof waliba waxaa laga yaabaa waxa ay keentaba inaysan wax u tarin, laakiin waxay noo tartaa niyadeen noo tartaa. insha allahu tacaala ammaanta iyo dhiirigelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka soo baxdo. waana mahadsantihiin. xanuun iyo shidadii ilaah baa shaafiye. shaafi hospital xumadaada u sheego, dhakhaatiir shaki la'aan shahaado sare laba shaafi kugu diyaaray xumadaada u sheego. adigoon isi shidayno naftaada shalow ka tuurin, shaafi baaba diyaaray xumadaada u sheego. isbitaalka shaafi waa mid ka tilmaaman isbitaalada dalkeenna aqoon iyo qalabba. isbitaalka shaafi waxa uu caan ku yahay loogana dambeeya qallimada casriga. ilaah mahadiis waxa uu ku guulaystay qallimo lagu samayn waayey dalka gudihiisa, waana sababta looga maarmay dibadda. waxa uu caan ku yahay isbitaalka qalabka casriga ah ee lagu sameeyo qallimada casriga ka oo ay adeegsanayaan khubarada ku takhasustay qallimada casriga ah ee kugu diyaaray isbitaalka shaafi. waxa uu la gaar yahay kuna caan baxay suuxdinta casriga ah ee aan lahayn cabsida badan. waa jiifo sooka. shaafi hospital waa astaanta daryeelka hooyada iyo dhallaanka, waana tiirka daweynta cudurrada guud. isbitaalka shaafi 7 maalin 24 saac waheegan, waana ku diyaar howlwadeennadiisa. shaafi hospital wuxuu caan ku yahay halkudhigiisuna yahay xanuunkaaga ku sheega afkaaga hooyo. si aad u daryeesho naftaada ka dhig doorashadaada koowaad shaafi hospital.